تقدر ساحل مرودجاه iyo awdal waana kulan faa'iido badan lahaa oo lagu qorsheynayo qorshe hawleed 3 sano oo gobolkan awdal loo diyaarinayo iyadoo gobolada kalena waqtigeeda ay iman doonto isla markaasina buug laga soo saarayo marka waxaan imigana ku soo dhaweynayaa Umar Ali Cabdilaahi oo ku hadlaya magaca jaamacadaha ka qayb galaya kulankani ku soo dhawaad waxa loo yaqaan National Development Bank lagu fuliyo laba kun iyo 13 saddex way soo dhawaatay saddexda hadhay in degmo walba baahiyada inta ugu mudan oo ka dhex muuqdo marka sababtaas keentay in marwalba arabka lagu xajo inaynan ka bixin qorshihii guud dalka lahaa ila waxa weyn National Development Bank hadaynu ka baxno dee waa qorshe ka baxsan marka inaga qorshaha raacayna aynu wax sameeyeen in baahiyaheena aynu sheegno taas marka waxa keentay in maanta aynu wada fahamsanahay baahida ka taagan gobolka awdal afartiisa degmo hal noqoto caafimaad hal noqoto biyo hal noqoto beero hal noqoto wax walba awal waxa laga xogta waxa ayuu agaasimo waaxidka waxbarashadu waxa laga agaasimo waxbarashadu waxa laga waxbarashadu ogaa laakiin maanta beerihii uu garanaya taas waxa fududeynaysa wada shaqayntii marka ay yeelanayeen maxay agaasimayaashu ama isuduwayaashu yeelanayeen taas waa dhinaca labaad waxa weeye waxa keenaysa in bulshadii ay yeelato hadhow go'aankii horumarkeeda qayb ka qaado haddii aan la oran jirin waa loo soo qorsheeyay oo waxa uma baahneen maanta waxa laga yaabaa wax inagu xisaabta awal waxa la oran jiray maxaad weydiisateen aan idin qabowey deeb waxa la leeyahay kulli dawladda dhexe waxa ku masuul agaasime wada haystaan qorshe Soomaa waxaan codsanay anasta xasana soo socda waa la hayaa inaga nafteena de waa xisaabtamayna awoodda dalku marba talaha warbintaas suuragal ma 3 sano aynu taas markaa keenaysa inaynu imiga aynu maanta laga bilaabo gobolka awdal waynu haynaa qorshe horumarinta 3 sano soo socda taas markaa keenaysa inaynu iyagana wasaaradiina waynu hawsha la qabanayay naftooda wax badan bad iyaga faa'iideysteen oo waxyaabo malaha haddaan si hor dhacaan ka fikiraya waxa kamid ah in intaan goboladii hawsha laga bilaabin agaasimo waaxidiyadii ama xal isu duwayaashii horta National Development Bank ay haystaan ay fahmaan markay fahmaan ayaa waxa ay garan karaan meesha ugu daran deegaankiisa marka hawsha si fududaatay baa laga yaabaa in 4 cisho ama 5 cisho ama 10 cisho doontaan noqotay la qabto labo qodobka ugu dambeeya waxa waa inaynu sameeyno mashruuc walba inaynu qorno oo la raadto ahaan waxa u baahan dibdamis imisa labo imisa la siiyaa inta xagee laga keenayo in wixii la furfuro tiina waa maynaan sameyn waxa ka fikraya waqtiga dartii baa loo sameeyay talaafteedina waqtigii lagu daro taa waxa soo koobiya marka kulli waa qoray wixii anagu wadalkeena lagu hagaajin karayo hawshan ka socota waxa kaga baxaya markuu dambeeysa waxa la imaanahay inuu baynu ku soo dhacnay dariiq horumarku qorshe u baahan hadayna qorshe haysana horumarkeenu uu jiri laakiin waxa dareemi karo qiyaas kare ma noqonayo marka waxa la aad iyo aad baad maasantiin waxa la anaguna de kulli malaha waxa sinwaa dadaasheenay xogta in la ururiyo kulli buug baa laga dhigi doonaa waxaan jecelahay in sabab saabana lagu soo noqoto وسيل يقال حكم أنت الأورجية سيزو عتوه وأنا كوسون قولي مرجعت بدنا سنتين السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم مركبون صباح السلام يا أجاسمها جودة وسائل تقشرين هي أجاسم واحدية سدوياش قبلك سدوياش وسائل تقشرين قبل الله إن شويات كجامعة عدها هي دمان بين كل شيء شوف توحنا السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت كلمة كلها هاي أنا بقول هذا بيان مقاعد سدوياشة ومحضنا يسوي وحيابها مكفاية السنة أفرتهايشة. هرت هو سمنات الجهرة إنه عيساها لو قرشين يقرشه قبل هذا يوم بفرح سنة هاي كل هذه الباهي أودي كور سنة من دولة الدحى إن ما أنت ليس سدوياشة loo qorsheeyo qorshe ay leeyihiin aadayaan ugu faraxsanahay waxyaabaha ka faa'iideysanayna waxay tahay wasaaradda walba waxay moorisay in iyada haysto dhibaato gaar ah laakiin tani waxay cadeynaysaa in dhammaan wasaaraduhu ay yihiin kuwa isku xawareystay dhibaatooyinka ay qabaan isku xid iyo maamul wanaagna afilayna insha Allah inuu noqon doono qorshahana waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii horumar lagu gaaro 3 sano gobolka waan idin salaamayaa salaam calaykum وسارة الشغالية ما برشة إم قالوا حنو يريا حسين إذا برخبله أو
gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Saylac oo ku hadlaya magaca degmooyinka ku soo dhaw Xuseen dhammaantood iyo kasoo qaybgalayaasha wayna ku mahadsan yihiin intaa markaan gees u dhigo halkan ka helay mashruuca qorsheynta 3 sano soo socotay heer gobol waxaan ka faa'iideysanay aniga shakhsi ahaan inay qaar kala midayba wax badan oo hore u aqoonin ka faa'iideysanay baan u maleynayaa walaalaho ama aan ka baranayba sidii wax loo qorsheyn lahaa siday tahay oo ay u muuqato in horta dhibta la arko la qiimeeyo dhibtu maxay tahay xalil doob bahan intay leeg tahay dabadeedna sidee baa loo xalili karaa way macnaheedu dulcidu inta inay tahay baan fahamnay qorshuhuna waa dhabada horumar kastaan qabno ee horumar lagu gaari karo qorshaha oo la buubuunin oo intiisa lagu soo koobayna wuxuu keeni karaa xalhelida dhabta ah ee lagu xalili karo si ay noogu muuqato insha allahuna mar haddii aan isbaranay dalkii oo dhan gobolladii dalka waxyahoodii qorsheynta iyo intii kale waxaan u arkayaa horumar loo qaaday xaggii dhabta ahayd ee dimuqraadiyadda iyo maamul wasdaadejinta oo saxa gobollada kalena ay halkaa kasii socon doonaan alxamdulilah haddii sidaa lagu dadaalo oo lasii wadana waxaan gaari doonaa dhabta horumarka aan higsanayno inaan gaarayna waan rajeynayna ka degma ahaana degmooyinka oo dhan horta waan soo wada sheegnay dhibaatada ka jirta caam ahaan iyo guud ahaanba waa qayb baan ka nahay dowladaha hoose weliba waxaan leenahay dowladaha hoose halanoo sii badiyo hawsha waayo bulsho badan baa nagu xidhan bulshada badanna tabasho badan bay naga sheegataa waanan ogolahay wixii tabashiya tilmaamana in anaguna had iyo jeerna qaadano isla markaana aan anaguna cadowno tubteeda ku ridno markii lama tilmaamo wanaagsantii wassalaamu calaykum warahmatullahi sharafa inaan ka soo qayb galno hawshan muhiimka ah ee aynu 4 cisho halkan u joognay taasoo ahayd pilot project la doonayo oo laga bilaabay gobolkan Awdal waxaana laga filayaa anigu u mahadnaqayo dhammaantiin hawshaas maanta aynu halkan ku qabanay iyo qorshaha aynu soo bandhignay inaan gobolladayadiina aanu ku qabanno wax badan baanu ka faa'iideysanay wax badan baa noo baxay haddii aanan maanta halkan iman maxaan filayaa ama waxa cad inaanaan hawsha gobollada aanan ka qabaneen wax badan baa noo baxay taana wax noo fududeeyay maamulkii soo qabtay in halkan la isugu yimaado professorkii daadihinaya casharada hay'adii awoodda hawsha lagu qabanayo bixisay iyo dhammaantiin ka qaybgalayaasha oo muujiyay muhiimadda ay casharada iyo wixii aynu baranayno iyo waxa laynaga doonayo ay leedahay anoon hadal badan sheegaynin waxaan leeyahay waanu idiin mahadnaqaynaa haddaan nahay su'aasha gobollada wax badan baad noo fududeyseen hawshaana dhinaca ay ka baxdaa waa bakeela laqeed wasalaamu calaykum waxaa kaloo iyadana maarka aan jecelahay inaan xuso si fiican bay isu duwayaashu sida runtii ay uga soo qayb qaateen isagoo qof waliba wixii arqalada jiray iyo wuxuu islahaa waa lagu xalin karaa qorshe si ay ugu darsano halkan lagu soo bandhigay iyagoo dowladaha hoosena saas oo kale ay ahayd waxaan rajeynayaa haddii ilaahay yidhaahdo muddo aan dheerayn marka buuggaa la isku soo dabaridee lasoo qoray ee lasoo maaragtay faahfaahiyo inaan halkan isugu iman doono mar dambe annagoo wadno buugga fidintiisii iyo disseminationkiisii hadduu ilaahay yidhaahdo kadibna uu noqdo wax meel inoo yaalla oo aynu maaragtay kusoo hawl galno oo dee dariiq aynu raacayno inoo noqonaya hawshan dhowr jeero horena isaynu sheegnay waxa weeyaan qorshaha qaranka ee jira ayaa la doonaya in la sii daadejiyo oo gobol waliba uu yeesho qorshe horumarineed oo isaga u gaar ah kolkaa Awdal waxa uu nasiib u yeeshay intii ay Soomaaliland jirtay oo dhan inuu noqdo gobolkii ugu horeeyay ee loo sameeyo qorshe horumarineed oo heer gobol ah waa runtii marka laga hadlo waxa weeyaan nasiib ay leeyihiin gobollada kale ee dalka
mar baan maqlayay nin maaragtay lahaa awdal baa wax walba lagu tijaabiyaa oo waxyaabaha qaarkood aan ma fiicnayn kolkaa waxaan rajaynayaa inuu tani noqon doonto waxyaabaha awdal lagu tijaabiyey mid productive ah oo kuwa hore laga cabanayay aad iyo aad uga duwan oo maaragtay qiimo leh waxaa kaloo iga jirta isuduwayaasha iyada gobollada kala duwan ee dalku iyaguna inay maanta wax fiican ka faa'iidaysteen oo marka imika la yidhahdo qorshihii waa la qaban doonaa ay garanayaan sida loo qaban iyo qof walba waxa looga baahan yahay oo de ay fahamsan yihiinba iyaduna aad iyo aad iyo aad u muhiima mid kale oo ugu dambeyntii aan doonaya codsada baa jirtaa xagga xog bixinta oo iminka cabdiraxmaan hadan hayay waxaa la doonayaa isuduwa ahaan inaa horta isku fikir noqotaan oo aada wada fahantaan iyada waxaa ka hadlayaaba inta kaa kasoo qaybgasho dhammaantiinba cidda waxu wada doonaysaan inay tahay cid keliyaata oo laakiinse qofba uu miinis gaara u raadinaya mid beera ugu raadinaya iyo mid dibudajin ugu raadinaya iyo mid macdan ugu raadinaya laakiinse halkan u socona waa maxay waa isku mid kolkaa tiimika markii dhada xasan halas sheegayay lahaa muraayadaha kala duduwan hala iska wada bixiyo oo maaragtay si wada siman waxa loo eego kolkaa waxaa laga jeedaa isuduwa iyagu markuu xog idinka dalbado wuxuu idin keeni doonaa foomam la buuxinayo inaad isku yar hawshaan 3-4 daqiiqood bay kuu qaadanaysaa inaad foomkaa buuxiso wixii lagu weydiinaya si rasmi u sheegto ayagaad ugu dhigto waayo in badan buu yidhahdaa waxaa isuduwayaashii kamay soo jawaabin gobolkan oo qura maahae waana gobolladoo dhan kolkaa xagga wada shaqaynta wasaaradaha kala duwan ee heer gobol in iyadana aynu xoojino ayaan iyadana maaragtay aad iyo aad ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baa umahadsantihiin sida fiican waqti inoo soo horteen 4 cisho hawshii aad ku jirteen dhamaystirkeedii maanta oo ahayd maalintii hawshan ugu dambeysay run ahaantii 4 cisho ee aad u dulqaadateen aad sheegteen run ahaantii aad baad ugu mahadsantihiin hawshan dhammaatay ee maanta la soo qabtay marka dib loogu noqdo 4 shay baa laga faa'iidaya shayga ugu horreeya waxa weeye waa isbarasho idinkoo isku yimid oo isbartay talabaad waxa laga faa'iidaya waxa weeye xog waraysi idinku oo xog waraystay oo qof walba xogtiisii oo soo bandhigay ta kale laga faa'iidaya waxa weeyaan xogagaal inaad u noqotaan wasaarad kasta iyo meel kasta waxa jira inaad qof kale xogaal noqdo saddexaad waxa weeyaan aragti midaysan aad ka yeelataan baahida jirta ee gobolka 4 shay oo ugu muhiimsan waa 4 qorshaha la doonayo 3 sano ee la doonayo in la sameeyo qaabkii loo sameeyo maanta isaguna ka faa'iideen intiina taqaana ma intiina kala ka faa'iideen meesha cidna xul laguma dhigin laakiin waxa la isugu keenay waxa ahayd inaad ka faa'iidaan qofka kale inuu macluumaadkiisa ka faa'iido oo la wada faa'iido awal waxa laga caban jiray waxbaa naga maqan cid baa noo haysa meel ku jira maanta waxa weeyaan gacantiina ku jirta baahida idinka sheegtay baahida waxay noqotay wax idinku maanta idinku xaqiina hoosta laga soo bilaabay haani gunti ka tolantaa in gunta laga soo tolo oo aad wixii baahidiina idinku sheegataan waqtigu uu kooban yahay waa dhab wixii aad comment soo jeediseen haddii aan la yidhaahdo waa lagu dhaqmi doonaa si ay ugu fududaadaan gobollada kale ee hawlaha laga bilaabayo haddii aan la yidhahdo iyaguna ugu fududaadaan waa lagu dhaqmi doonaa baahi kasta oo meel taalla waxay u baahan tahay qorshe waxaa la yidhi talo la helayaaba xog talo la heli marka aad war hesho ayaa tala heshaa marka xog la helo ayaa qorshana la helaa qorshe dusha uun laga sameeyaa ma jira waxa weeyaan wixii xog ay jirta marka la isku keeno ayaa tala la helaa iminka waa isku timaadeen waxa hayseen baa soo bandhigteen kadib baa markaa qorshihii la samaynayaa qorshaha haddii la yidhaahdo waqti buu ku qaadan doonaa professorka ayaa gacanta inoogu haya haddii la yidhaahdo inoo daadihinaya professor halas wuxuu ku qaadan doonaa waqti kooban marka la soo diyaariyo ciddii qorshaha diyaarisay waxay noqonaysaa intiina halkaa fadhidaa qorshaha 3 sano ee loogu talay gobolkan intiinaasaa diyaarisay buug wuxuu noqon doonaa intiina qof baa kasoo qayb qaadatay diyaarisay qorshaha ka lagu dhaqmayo noqon doona maalintii hore ka hadlaynay waxaanu niri cid walba ha u diyaargalowday inay diyaarsato qorshaheeda oo ay la timaado baahideeda ay la timaado waxaan u malaynayaa maanta intiina halkaa fadhida inaanay berri qofna ka caban doonin ama ayna wasaaradna ka caban doonin oo odhan doonin korba wax lagaga keenay laakiin ay odhan cid walba ay odhan doonto tahay iqra kitaaba cid u timaadaba qof walba buugiisa iyo wuxuu qortay ayuu noqon doonaa wasaarad walba marka ay buugga haysato cid u timaado waxay odhanaysaa waxaasan u baahan wax noo qabtaa
badha saabka hadduu hayo wuxuu sheegi doonaa qorshaha gobolku leeyahay ayuu bandhigi doonaa odhanayaa waa kana wax ka qabtaa aad baad u mahadsantihiin run ahaantii 4 cisho waxa geliseen waan ognahay in waqti kooban yahay waan ku dadaalno waa ka fikirnay waqtiga la dheereeyo duruuf awgeed baa keentay waqtiga in la soo gaabiyo waan jecelahay wixii ka dambeeyay in loo fikiro oo la isweydiiyo run ahaantii aad baa ugu mahadsantihiin 4 cisho joogteen dadaalka iyo juhdiga aad geliseen waxaan ku rajo weynahay inuu ka soo bixi doono wax badan oo tayo leh oo muhiim ka soo bixi doono qorshaha aad diyaariseen aad baan ugu mahadsantihiin waana noo xidhan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi